السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جالك مالمها waxaan idin soo gudbinaynaa qiso aad u cajiib ah. qisadan ayaa waxay ku dhacday nin u dhashay dalka Suuriya. ninkani ayaa wuxuu ku noolaa jiray dalka Faransa isagoona u joogay waxbarasho. markii uu waxbarashada dhameystay ayuu wuxuu bilaabay inuu halka ka shaqeysanayo noloshiisana uu ka dabaranayo. ninkan ayaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay hanti fara badan. wuxuu arin iska dhaqan hase yeeshee ninkani ma uusan ahayn qof cibaadada Ilaahay la yimaado amaba salaada dukado, balse wuxuu ahaa nin iska baashaalo oo adduunyihiisa kaliya ka fikiro. muddo ka bacdi ayaa waxa dhacday ninkani wuxuu ka soo safray dalka Faransa wuxuuna soo aaday dalka Suuriya. halka ayuu degay isaga iyo xaaskiisa. markaasuu wuxuu bilaabay inuu ku tumanayo dalka Suuriya. halka ayuu muddo iska joogay. maalmaha kamid ah ayuu wuxuu arkay in sheekha oo muxaadaro akhrinayo. markaasuu wuxuu yiri markuu dhageystay ayuu fahmi waayay ninkan wuxuu sheegayo. markaasuu wuxuu yiri ninkan wuxuu sheegayo anigu ma fahmi karo, maxaa yeelay isagana wuxuu ku jiraa nool, anigana waxaan ku jiraa nool kale, sida darteed ninkan aan fiicin maayo oo ku soo tagay. ninkan muddo ka bacdi Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu doonay inuu imtixaan geliyo isla markaana uu tusiyo nolosha xaqiiqadeeda. waxaa ku dhacay ninkan cudur aad loola yaabay oo caalamka cusub. ninkani wuxuu beelay dhammaan xibnihiisa oo dhan, wuxuuna noqday qof aan waxba qabsan karin. xarakadiina way ka tagtay jirkiisa. wuxuu bilaabay inuu dhaqaatiir u tagayo oo isbitaalada wareegayo. ilaa dhowr isbitaal ayuu tagay. markaas mar waliba waxa lagu dhahay niihow cudurkani waa cudur cusub, wax daawo ah ma lahan. ilaa markii dambe uu tagay nin dhakhtar ah oo ku takhasusay cudurrada noocan oo kale ah. ninkii ayaa isku day inuu daaweeyo, balse muddo ka bacdi wuxuu ku yiri niihow cudurkani waa igu cusub yahay oo waan la yaabanahay, caalamkana ma aan ku arag midkaan oo kale, sidaa darteed niihow wax xal kuma hayo ee iska tag. ninkii oo ka soo tagay ilaa 6 bilood markii uu iska daba naqanayo xal waayay ayuu qoostay. markaas Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu doonay inuu dariiqa saxda tusiyo, qalbigiisana hidaayo ku soo dajiyo. maalmaha kamida ayaa qalbigiisa waxa ku soo dhacday in Allah subhanahu wa ta'ala uu baryo cudurkan inuu ka qaado. markaas wuxuu yiri Allah cudurkan iga qaad, haddii ay qaadana waxaan ballan qaadayaa inaan wanaagsanaan doono, cibaadada aad igu waajibisan aan la imaan doono ay ugu horeyso salaada. ninkii mudiirka bacdi waxa bilaabatay in jirkiisa dhaqaaq uu bilaabay. kaasoo wuxuu bilaabay inay awood u soo noqonayso. markii uu dareemay sida ayuu markiiba wuxuu ku dhaqaaqay inuu la yimaado cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala. salaadii ayuu bilaabay. ninkii maalinta ka sii dambeeyso Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo celiyay caafimaadkiisii. ilaa ninkii markii dambe uu ka raystay. markaasuu wuxuu bilaabay inuu masaajidkii ka dhigto dhaqan, isla markaana uu ka qayb galo duruus laga akhriyo masjidka. maalmaha kamid ah ayuu sheekhi masjidka kitaabka akhrinayay. markii kitaabku uu dhameeyay ayuu u yiri, kaasoo wuxuu ku yiri sheekhu aniga ma taqaanid, balse waxaan rabaa inaan kula wadaago waxyaabihii aan soo maray. markaasuu uga sheekay xaaladiisa iyo waxyaabihii Allah subhanahu wa ta'ala oo ku imtixaamay. hase ahaatee ninkani wixii ka dambeeyay waqtigaas wuxuu noqday nin wanaagsan, isla markaana masaajidka ku xiran, cibaadadana Allah subhanahu wa ta'ala si wacan ula yimaado. qisadani halkan ayay ku eg tahay. hase ahaatee qisadani waxaan ka faa'iideynaa waxyaabo badan. haddii Allah subhanahu wa ta'ala oo shay kugu nicmeeyo, weliga Allah ha ku kadsoomin nicmada lagu siiyo, maxaa yeelay waxa dhici karto in maal laga qaado. haddii lagu siiyo maal ama lagu siiyo awlaad ama lagu siiyo caafimaad ama lagu siiyo aqli badan, ha ku kadsoomin, balse mar waliba waxaad xasuusataa Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay si nicmadani ay kugu sii baaqi noqoto. sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa haddii aad dhibaatooto ama in nolosha kugu adkaato, mar waliba u carar albaabka Allah subhanahu wa ta'ala. maxaa yeelay albaabka Allah mar waliba uu furan yahay, oo haddii aad bani aadanka aad ka soo quusato albaabka Allah lagama quusto. ninkani wuxuu gaaray xaalad ay noloshiisa gaartay in laga quusto, balse Allah subhanahu wa ta'ala ayaa doonay inuu qalbigiisa tusiyo dariiqa saxda ah. ma uusan ka quusan alle, balse markii dambe albaabkiisii ayuu istaagay ilaa uu ka helay wixii uu raadinayay.
sidoo kale qisadan waxaan ka faa'iideynaa inaan ku kalsoon adduunyadan maxaa yeelay adduunyadu ma ahan muhiimadda la isku keenay inaad ayada ku kalsoonto bas waa gaadiid aad ku gaarayso aakhiradaada sidaa darteed mar waliba ku fikir adduunyadan haddii aad tahay ruux wax waliba haysto inaad maalin ka dhex bixi doonto waxaana wanaagsan mar waliba nicmada lagu siiyey inaad uga shaqaysato meesha lagu abuuray aakhirada ah iyo cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad ka cusub tahay janaalka maalmaha fadlan subscribe dhig gabalkan riix si ay kuu soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono mahadsanid